Why does English feel so hard for Somali speakers? I've tried many times, but I always feel stuck. Why does English feel so hard? Englishku muxuu ugu muuqdaa mid adag? Why does English feel so hard? Englishku muxuu ugu muuqdaa mid adag? For Somali speakers, dadka ku hadla af Soomaaliga, yacni Soomaalida. In badan waan ku hadalnaa, maasha Allah. Intaan aqoon inaan ka hadlaynaa. Why does English feel so hard? Englishku muxuu ugu muuqdaa mid adag? For Somali speakers, dadka ku hadla af Soomaaliga. I have tried many times. Marar badan ayaan isku dayay. I have tried many times. Marar badan ayaan isku dayay. But I always feel stuck. Balse mar walba waxaan dareemaa cidhiidhi ama midaan baran karinba. But I always feel stuck. Balse mar walba waxaan dareemaa cidhiidhi oo yacni inaan baran karin camal. I used to feel the same way, honestly. But English is not hard. It's the method that makes it hard. I used to feel the same way, honestly. I used to feel the same way, honestly. Anigaba waxaan dareemi jiray sidaad hadda dareemaysid camal daacadaha markaan ka hadlo, okay? Waagaan Englishka baran jiray, dareenkaad hadda adigoo leedahay oo ah inuu Englishku adag yahay ayaan dareensanay daacadda markaan ka hadlo. But English is not hard. But English is not hard. Balse Englishku ma adka. Balse Englishku ma adka. It is the method that makes it hard. It is the method that makes it hard. It is the method waa qaabkaad adigu u dhiganaysid, okay? That makes it hard. Waxa ka dhigaya inuu adag yahay, okay? It is the method that makes it hard. Qaabkaad u baranaysid ayaa kuu fududayn kara, kuuna adkeyn kara.